Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxay ahayd gabar guri joog ah iskuna badashay milkiilada silsiladaha dukaanada lagu iibiyo macmacaanka. Waa haweeney mucjiso ah taas oo qaamuuskeeda ka saartay kelmadda mustaxiil laguna magacaabo Debbie Fields. Inkastoo Debbie soo martay caqabado badan iyo isku day badan oo lagu niyijibinayo, haddana isma dhiibin oo dhammaan duruufahaasi adag way iska caabisay ilaa ay noqotay milkiilad iska leh 2,300 oo dukaan. 4 ka mid ah dukaamadaasi waxay ku yaalaan dhul ka baxsan cariga Mareykanka. Waxay ka dhalatay Debbie qoys noloshooda dhexdhexaad tahay, kana kooban 2 waalid iyo 5 carruur ah. Waxay Debbie dhalatay sanadkii 1956. Wuxuu ahaa aabaheed alxanle ka shaqeeya biraha. Hooyadeedna waxay ahayd maamo guri joog ah oo ciyaalkeeda tarbiyeysa. Sidaa daraaddeed Debbie fursad wanaagsan uma helin dhamaystirka waxbarashadeeda, nafteedana maba jeclaan in ay wax barato. Waxay Debbie laasimtay kushiinka gurigooda, ayadoo baratay welibana ku xildheeraatay samaynta macmacaanka. Waxayna jaarkeeda ka iibin jirtay waxa ay soo karisay ee macmacaan ah. Waxaa u soo gashay Debbie macmacaanka ay samaynayso islamarkaana ka iibinayso dadweynaha inay ka aruursato xoogoo lacag ah, kadibna awooday inay iibsato gaari mustacmal ah oo Volkswagen ah ayadoo aan gaarin 17 sano. Debbie ayaa guursatay ayadoo 19 sano jir ah wiil aqoon-yahan ah oo lagu magacaabo Rangi, kaa oo ka soo qalin jabiyay jaamacadda Stanford. Waxayna u dhashay carruur, waana isku wada weysay daryeelka carruurteeda iyo shaqadeeda. Waxayna go'aansatay inay joojiso shaqadeeda ee aad ku jeclayd, laakiin muddo kadib way soo baraarugtay. Waxayna dib u bilowday samaynta macmacaan heer sare ah, ayadoona furtay dukaan lagu iibiyo macmacaanka. Laakiin waxay diidmo weyn kala kulantay ninkeeda, kaa oo ku tilmaamay mashruuceeda ganacsi mid duqannimo ah. Sidoo kale waxaa la saftay ninkeeda waalidiinteeda, kuwa oo Debbie xasuusiyey inay ku fashilantay waxbarashada oyna lahayn wax aqoon ah oo dhanka ganacsiga ah, isla markaana haysanin lacag ay ku maalgeliso ganacsigeeda. Inkastoo dhammaan wax lagu sheegay Debbie sax yihiin, haddana ma quusan oo waxay wacd ku martay inaysan dib u laabanin oo sii wadato halgankeeda, dhagahana ka furaysato waxa la sheegayo. Debbie ayaa muddo bangiyada ka codsanaysay inay amaah siiyaan si ay u dhaqaajiso mashruuceeda ganacsi ee cusub, laakiin way weysay bangi aqbala dalabkeeda. Aakhirkii ayadoo quus ku dhow ayay mid ka mid ah shaqaale bangi ka heshay amaah si uu wado shaqadeeda. 16 Agoosto sanadkii 1977 ma ahayn maalin caadi u ah Debbie. Maalintaas waxay furtay dukaankii ugu horreeyay ee mashruuceeda cusub. Maalintaas waxay u ahayd maalin farxad iyo maalin murugo oo isxambaarsan, waayo ninkeeda iyo waalidkeedaba ma taageersana mashruuceeda ganacsi ee waxay u arkaan mashruuc qarashkatoornimo ah oo waali ah. Wuxuu ninkeeda maalintaasi ku dhahay xaaskiisa Debbie, waxaan sugayaa fashilkaada oo maanta ma laga iibsan doono wax u dhigma $50. Waxaa wax laga iibsan waayay Debbie ilaa la gaaray duhurkii. Ma noqon Debbie gabar gacmo xiran oo guusha ku sugtay dukaankeeda, ee waxay soo qaadatay xoogaa macmacaan ah ayadoo la dhex lugaysay waddooyinka oo qof kasta wax ka iibsada siinaysay gobol macmacaan ah. Xataa waxay macmacaankeeda la kortay gaadiidka dadweynaha sida basaska. Maalintaas waxay awooday inay faa'iido $75. ninkeedana waxay tustay inuu qaldamay, hadday doontana guul gaari karto, jirina qofku qasbi kara in ay fashilanto. Si degdeg ah ayuu u faafay magaca macmacaanka Fields. Waxayna ahayd Debbie qof aan shaqaalaysiinin qofka ilaa ay ka imtixaanto, ogaatan inuu yahay ruuxa shaqada la siinayo qof furfuran oo dabeecad wanaagsan kula dhaqmaya macaamiisha, isla markaana ka diraya macaamiisha dukaanka ayagoo faraxsan. Dhanka kalena yahay qof aad u jecel shaqadiisa oo aan dhibsanaynin samaynta macmacaanka. Gabagabadii Debbie waxay ku soo baxday haweeney mudan in lagu daydo, isla markaana leh in ka badan 2,000 oo dukaan. Ganacsigaas oo ay ka faa'iideysan walba malaayiin $. Waxay Debbie noo cadaysay inaysan guush u baahnayn shahaadooyin badan iyo kaalmo, laakiin guush ay u baahan tahay oo keliya go'aan qaadasho, maamul wanaag iyo inaad ka fogaato shakhsiyaadka ku niyijibinayo.